بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن داوديال ميل كستو الدنيا كجوكتان كسو دوادا برنامج كينا ورركي قدام بيي سوماليا يا عالمكا قضبدا أتكو داون دونتان وحا كميدا وعشوا بنكي أوراميا دولدي مدحوينة عبد إلي أو أفجنب قرشيسان لغوليدي بوب iyo bilalaqa ka socda magaalada Jigjiga iyo amnigii oo faraha ka baxay gudoomiyaha baarlamaanka dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in aysan meel ku sheegin madaxweyne Cabdi Ilay wararkii ugu dambeeyay xiisadii ka taagneed wasaaradda arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare Khayre oo soo farageliyay ra'iisul wasaare Khayre oo cadeeyay waxa ka jira in booqashadii Puntland uu hareeyay khilaaf warar dheeraad ah oo ka soo baxay xiisadii ka taagneed xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya kufsiga ay geystaan ciidanka Kenyaanka ah ee jooga gobolka Gedo oo waji kala yeeshay daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka haatan ku soo dhawaada asagiyo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo wali ku sugan deegaanada Puntland oo socdaal ku maray ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah ay kamid yihiin warar sheegayay in booqashadii Puntland uu ku tagay ra'iisul wasaaraha inuu hareeyay khilaaf siyaasadeed waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha inay jiraan kuwa caadaystay inay xumaanta kaliya raadiyaan isla markaana ay noqdeen kuwa fashilmay waana sida hadalka uu dhigay kuwa caadaystay marka inay xumaan kaliya raadiyaan waxaan leenahay waa fashilanteen waxaan leenahay reer Puntland iyo hooyada federaalkuba waxay noo soo dhaweeyeen sidii aan ugu mudnayn oo naloo soo dhaweyn lahaa haddii intii annagu aan joognay cid ay dareentay inaanay nagala kulmin sida ay mudnayd ama cid ay habeen walwashay anigoo ku hadlaaya magaca xukuumaddan hogaaminayo iyo cid walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walba qalbigaada qaboojisa raalin ahow haddii aad ka walwalsantihiin ra'iisul wasaaruhu muxuu la noqon doonaa waxaan la noqon doonaa farxad iyo rayn aan halkan kala kulmay waxaan la noqon doonaa mas'uuliyad weyn oo fuushay oo ay igu dhaliyeen shacabka reer Puntland waxaan ilaahay ka baryayaa inaan mas'uuliyadaas ka soo baxo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo xalay ka qayb galay munaasabadda sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegatay aasaaskii Puntland ayaa ka hadlay xiisadda kala dhaxaysa Somaliland iyo dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab iyo Daesh madaxweyne Gaas ayaa sheegay in qaab siyaasadeed lagu soo duulay dadka degan deegaanada gobolka Sool isla markaana Puntland aysan aqbalin naf iyo maalna ay u horeyso waxa uuna sidoo kale ka tacsiyay dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay Buuhoodle waxaan rabaa inaan halkaan ka hadlo arrin xasaasiya ee ku saabsan gobolka Sool gobolka Sool dhibta siyaasadaysan ee dhulfidsiga ah ee lagula soo duulay Puntland aqbali mayso waxaa weyna difaacaysa waxaa xusid mudan maanta in shacabka reer Puntland ay muujiyeen midnimo iyo taageero qiiro leh oo lagu taageerayo walaalahood ayna ugu horeyso midnimada shacabka reer Sool iyo Sanaag Al-Shabaab iyo Daesh waa khatar dalka Soomaaliya ku wajahan oo maalin walba gumaadaya haldoorka Soomaaliyeed waxaa falalkooda waxashnimada ah ugu dambeeyay kuwii ka dhacay Buuhoodle Gaalkacyo iyo Muqdisho waan uga tacsiyeynaa qoysaskooda ayagana Allah u naxariisto waxaa muuqata inaysan jirin fikir dhab ah oo lagu midaysan yahay laguna dabargooynayo argagixisada sidaas awgeed waxaan mar kale ku celinayaa baaqi aan ka jeediyo shirkii Belgium ee Somali Partners Forum 2 toddobaad ka hor in si degdeg ah loo qabto shir caalami ah oo Soomaaliya gudaheeda lagu qabto oo Soomaalidu hogaaminayso kuna saabsan sidii Al-Shabaab iyo Daesh dalka looga xoreyn lahaa
madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku baaqay in walaaltinimo lagu dhameeyo xurgufta siyaasadeed ee u dhaxaysa Djibouti iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Waare oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in saameyn weyn ay ku yeelanayso tabashada ay qabto dowladda Djibouti oo ciidamo fara badan ay ka joogaan deegaanada maamulkiisa iyadoo ku howlgala magaca AMISOM. runtii xiisadaas aad sheegayso oo ka dhalatay runtii isbedelka ka socda geeska Afrika aaday runtii annaga noo taabatay waxaana aan la damqanay oo aan la xumaanay yani calool xumada iyo niyad jabka galay walaalihii reer Djibouti. runtii Djibouti taariikhda ay ku leeyihiin Hirshabeelle amaba Soomaaliya guud ahaan ama waxa naga dhaxeeya Soomaaliya oo dhan waa ogtahay ilaa iyo adduunka laga duumane dad walaala oo derisa oo isku dhiiga ayaan nahay sideedana in abaalka la gudo sidii ayaguba abaalkii aan u qalnay xornimadoonkii ay u gudeen oo tirada ciidamada ee hadda qalabka sida oo Djibouti ay leedahay dadku waa yaqaanaan inta ay nooga soo direen iyo inta ay kasoo gooyeen haddii saami la yidhaahdo waa la qiyaasi karaa. runtii howlgalkaas iyo walaaltinimadaas iyo wanaaggaas iyo dhiiggaas ay noo daadiyeen iyo sabafalka ay ka qayb galaan oo fatahaadii hadda ugu dambeysay ay ka mid ahayd oo ay dadka magaalada Beledweyne soo wada badbaadiyeen inkastoo arrimahaas ay yihiin arrimo u yaallo madaxda qaranka iyo madaxda dowladda Djibouti iyo madaxda deriska ah oo rijinka haddana wax alla wixii walaalaheen xumaata ku ah annaga xumaatay nagu yihiin wax alla wixii wanaagay noo yihiin waxaan diyaar u nahay walaalaheen niyadna aan diyaar u waranahay waxqabadna aan diyaar u lanahay siday noo garab istaageen inaanu garab istaagno. wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in afgambi lagu riday dowladii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo ku magac dheer Cabdi Ilay. gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Rashiid ayaa xaqiijiyay in la riday dowladii Cabdi Maxamuud Cabdi Ilay waxa uu sheegay in guud ahaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda haatan ay la wareegeen ciidamo federaal ah oo ka socda dowladda Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaa xabsi guri dhigtay madaxweynaha kadib markii looga yeeray magaalada Addis Ababa iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan inuu ka biyo diiday yeeritaankaasi. magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa buux dhaafiyay ciidamo Itoobiyaan ah iyadoo guud ahaan ay la wareegeen xarumaha muhiimka ahaa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. madaxweyne Cabdi Ilay ayaa ka biyo diiday in isbedel lagu sameeyo qodob ka mid ah dastuurka u yaala baarlamaanka goboleedka Soomaalida Itoobiya waxaana ilaa ay hadda aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay. ciidamo ayaa sidoo kale waxa ay la wareegeen xarumaha baarlamaanka iyo telefishinka ESTV waxaana la arkayay ciidamada oo wata gaadiid gaashaaman. warar dheeraad ah ayaa weli ka soo baxaya xaaladda halista badan ee saaka Jigjiga ay ku waabariisatay. mas-uulkii ugu horeeyay ee maamulka dowlad deegaanka oo ka hadlay wuxuu sheegay in ay dhammaan goobihii ay ku shaqeynayeen ay la wareegeen ciidamo federaalka Itoobiya ka socday. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamed Rashiid Isaaq ayaa sheegay in goobihii ay la wareegeen federaalka Itoobiya ka sokow aysan meelna ku sheegin madaxweynahoodii mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ku magac dheer Cabdi Ilay. annagoo kulley shaqadeenu baan ku jirno oo nabad qabno xuduud ilaa Jigjiga oo dhaxdeen dhib jirin maanta markaan toosnay aroortanba makalaakiyaa noo qabsaday oo zuu wato wax kas wato qori wato infantry iyo uraaladii waxaas dhanna ay la qabsadeenoo deegaankeenna meel joogaba Jigjiga meel kasta qabsadeen sabab ma garanaynin oo dhibaato jirin higamangistaa saraar annaga u joogno wax kulley sababkan u dhacay aan garanaynin waa nala qabsaday had madaxtooyinka naftooda waa la weeraaray waa loo xareeriyey madaxweyne meel sugan yahay ma garanay taasaa kulley inaan kulley maxaan ku rahaa aan gudbaan doonay shacabkayga inay ogaado bas shacabkeena inay ogaadaan saacadan kulley waxaan u sugannahay ma garanay taasaan soo jeedinay waxaan ku sugannahay xaalad adag oo loo baahan yahay shacabka iyagu inuu maanta dadnimadiisa caddeeyo. Itoobiya maanta waa qowmiyado inay qowmiyadi caawayna qabsato iyadoo awalba tulli soo maraysay waa ayaan darro iyo dhimasho ummadda Soomaalida ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan Jigjiga waxaan leeyahay xoogga military soo galay xoog inaga saara istifaac baan u baahanahay ka kacaan idin leeyahay ka kaca annaga oo nabad qabna oo seexadnay ayaa saaka waxaan ku waabariisanay ciidamo
aad u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada Jigjiga guud ahaan xarumaha dawladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaanba goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxaa dhibaatooyin iyo hagadaamooyin aad u fara badan ay ku hayaan waa shacabka madaxweynihii iyo mas-uuliyiintii ugu sarreysay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxaa isku weeray ciidan aad u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynihii ku sugan yihiin ma ogin taasina waxa ay mataqaanaa jabinaysaa nidaamkii federalismka constitutionkii waddanka u yaallay shuruucdii dalka u taallay waxaana samaynaya waa dowladda federaalka ugu horreeya ra-iisul wasaaraha waddanka marka waxaan leenahay dadka shacabka ee Soomaalida Ethiopia waa qoomiyado waxaan nahay qoomiyada Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ha loo istaago midnimadeena ha loo istaago mataqaana isku duubnideena ha loo istaago sidii loo difaacan lahaa waddankeena iyo sharafteena iyo karaamadeenna cid kastoo inagu soo cadgudbaysana maanta waxaan haysanaa chance in laynoo adoonsado ma sidii awal laynoo adoonsanayay in laynoo dhibaateeyo sidii awal laynoo dhibaateeyay ma aha haddaan qadiyadeena iyo sharafteena maanta difaaci weynana inaan dayuusin doofaaro aan noqonayno ayaa ka cad marka waxaan baaqaya dhammaan dadka Soomaalida ee dibadda daafeeyay joogana in arrinta la socdaan in laga dhiidiyo in cid kasta mataqaana dareenka wadaniga ay muujiso isla markaas si degdeg ah hawsha wax looga qabto xarunta deegaanka Soomaalida ee Ethiopia xarunta xisbiga saaka deegaankeena Soomaalida Ethiopia aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan uu ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyay wax loo keenana ma garanayno kor baana laga qabsaday dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dawlad deegaan buu ahaa Soomaalida Ethiopia dalka Ethiopia wuxuu ku dhisnaa federalismka dalka Ethiopia uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Ethiopia kamid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhaxeeyay marka maadaama dastuurka dalka Ethiopia ay dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ku dhisnay dastuurka Ethiopia waa la jabiyay in la jabiyayna waanu arkaynay anagu waayeen oo dhan laakiin waxaanu isnayn ninkoo dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dastuurka ininku aad asaxiseen ha u horjabinina qoomiyad baan ugu soo duushay ra'iisul wasaarihii dalka Abiy qoomiyad buu noqday lama nagu soo duulay meel walba ciidankii Oromo iyo ciidankii federaalka ayaa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta haysta madaxweynihiina meel ku sugan yahay war uma hayno shacabkiina meel walba wuu kacay shacabki waa la leynayaa marka Soomaaliya ay dunida daafaheeda meel kasta joogtaan maanta waxay maraysaa qadiyad maanta haday inagoo Soomaali ah ay Oromo ina qabsato wax qadiyada iyo wax sharaf ah oo inoo haray ma jiro madaxweynaheena dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta meel ku sugan yahay cid war u haysa ma jirto waxaa laga xun yahay shidaalka inoo soo baxay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay horumarka aynu gaadhnay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay dadkeena wax bartay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay qaabkaan isku maamulayna laga xun yahay nin kasta oo Soomaali ah oo wax qabayo waxaad qabtay dib intaad u dhigato waa inaad maanta dhiigu ku kaco oo dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waa artan in la qabsaday milyan xataa ku haysto waa inaad milyan xar aad ku hadashaan oo in la qabsaday ogaataan wixii inta ka dambeeyana saacad daqiiqad wixii soo qornayaan in la socodsiinayna aad bay u mahadsan yihiin saaxiibaday sida ay sheegeen waxa weeye saaka oo ah maalin sabtiya waxa weeye mataqaan waxaan ku suganahay xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waxaanu halkan ku fadhinaa mas'uuliyiintii deegaanka golihii dhexe ee Soomaalida dhammaan goobihii muhiimka ahaa ciidamada waxa weeye mataqaan dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia deegaanka min mooyaane ilaa iyo dawalle xuduudda waxa weeye mataqaan ku hareeraysan sugayay buu ahaa waxa weeye mataqaan anagu isma aanan lahayn cadow dalka ayaa tihiin waxa weeye eraya fara badan oo waxa weeye mataqaan ay kicinaya shacabkanaga oo second citizen laga dhigayo ayaa waayaha ra'iisul wasaaraha dalka afkiisa uu ka sheegay waxa kamid ahaa waxa weeye hadal uu sheegay oo uu soo galiyay eray ah Soomaalida Ethiopia which means Soomaalida iyo Ethiopia waxa weeye mataqaan anagu ah dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa weeye mataqaan waxa maaragtay waxa weeye mataqaan kale oo waxa weeye mataqaan uu ka hadlay toddobaadkan gudihiisa arrimo ku saabsan natural resources deegaanka shidaalka oo uu yiri 5 daqiiqo waxa weeye 5% ayay ku yeelanayaan dadka laga helay which is wrong taas ayay shacabkanaga ka kaceen taas ayaa social media ku jirtay toddobaadkan isagoo taa maxaan ku raday waxa weeye mataqaan sabab ka dhiganaya
ayuu waxa weeye saaka waxa weeye mataqaanaa sidee 5% looga hadlayaa yuu shacabkii ku leynayaa xabaday hadda ridayaan baa leeyay inay dad dhinteen inay waxa weeye dhaawacmeen waan idin soo sheegi doonaa laakiin annagu sharcigii baan wali taagannahay higgi mingistigii baan taagannahay waxa weeye hal talaabo oo sharciga jabinaysana inaanu ku dhaqaaqno waxaa naga hor istaagay madaxweynaha nagi iyo mas'uuliyiinta nadi waxa weeye marka ilaa hadda sharcigan ilaalinaynaa waxaanu sheegaynaa qoomiyadda waddanka qabsatay inay waxa weeye sharciga ilaaliso waxa weeye dal wakiil kama noqon karaan waxa weeye si qoomiyadeed bay noola dagaalamayaan intayna waddanka qabsanin iyaga waanu islaynay waanu isku dhacnay waxaan islahayn laakiin markay waddanka qabsadaan waxa weeye dhibaatadii jirtay way xalinayaan dagaal ciidan ayaa ku socday qoomiyadda Soomaalida 5 bilood ee ugu dambeysay kumanaan ayaa mooyaane ku dhimatay kumanaan ayaa tulli ku dhimatay kumanaan ayaa baabili ku dhimatay ilaa hadda shacabka annaga waxay nagu dhaliilayeen ciidan baa dagaalamaya maxaa u dagaalami laadihiin ciidan baa dagaalamaya maxaa u dagaalami laadihiin waxa weeye ilaa hadda madaxweynaha annaga baa naga hortaagnaa haddana waxaan ka codsanaynaa waxa weeye mataqaanaa in la fasaxo waxa weeye mataqaanaa ciidanka deegaanka iyo shacabka deegaanka oo waxa weeye la iska celiyo cadawga qabiilka ee nagu soo duulay daawadayaal intaasi waxaa ku qaybtii koowaad ee wararka oo caawa xiise gaar ah leh taasi oo ka dhalatay xiisada ka taagan dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan Jigjiga haddaba la soco qaybteena labaad ee wararka caawa ama linkigan hoose raac mahadsanidin